دستورنا القرآن وديننا الإسلام. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. intaa kadib mahad ilaahay subxaanaه wa tacaala kadib waxaa sharaf noo ah maanta in mudane madaxweyne aada nagu casuumtay majliskaagii iyo maqarigaagii adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan madaxda halkan ka soo qayb gashay. aad baan ugu faraxsannahay runtii alxamdu lilah istiqbaalka iyo soo dhoweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanine diyaaradda lanaga hor yimid aad iyo aad lanoo soo dhoweeyey. runtii waxaa lana dareensiiyey annagoon yani madax iyo maamul iyo midna qabanin inaanu wasiiraroo kala nahay ama madax nahay baa lana dareensiiyey. meesha sida gaarkaa lanoo soo dhoweeyey oo VIPda miyaa la yidhaha sidaasaa lanagu soo dhoweeyey alxamdu lilah. arrintaasina waa arrin aad idinku amarteen weeye. allah idinka abaalmariyo waa idinku ducaynay. inta meesha aanu fadhinay muctamarku uu socday kulankaa diineed uu socday waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye waa duco liannahu ummad badan baa isu timid. qof khayr ku jira ilaah baa og. kuweennaa meelaha ka hadalda ee sheekhda la leeyahay ilaah baa xaalkooda og. laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducadaa meesha lagu ducaynayo o aamiin ay odhanayaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajiibayaa. marka muslimiintu inay kulmaan oo shir yeeshaan oy wada ducaystaan khayr badan baa ku jira. nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaaruu u tilmaamay ducada jamaaciga ah. qofku waa iska ducaysanayaa weliba markuu habeenkii keligiiho ilaahay u baryayo ducadiisu insha allah waa mustajaab. laakiin si gaaruu nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi: maa dacaa qowman waamana bacduhum ila ajaabahum allah. jamaaca ma isuma timaado qaarkoodna ma duceeyaan qaarkoodna aamiin ma dhahaan ilaa ilaahay waa ka ajiibaa. dee saan la soconnona adduunka iyo aakhiradaba ilaahay gacantiisay ku jiraan. cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jiraan. wax alla waxa khayr ahayn rajaynayno xukuumatan wa shacban ummaddaas meel kasta joog soomaaliya oo dhan meelay joogta iyo khaas ahaan ummaddeennan walaalaheena somalilan xukuumaddooda iyo shacbigooda iyo waxaa la rajaynaya khayr ahee la sheegayo. walaalkeen uu ka dhawaajiyey dad badan oo faqri iyo masaakiin iyo marad iyo xanuun iyo intaba ay jiraan. dee kan rafcin karaa waa allah subxaanaه wa tacaala biyadihi kulu shay. marka dariiqada keliya ilaahay wax laga helaana waa in laysu beenbihiyo oo la baryo oo si miskiinnimo ah weliba loogu sheegto. ilaahay markuu nooga sheekeynayey zakariya calayhi salaam nebiyadii ambiyada ilaahay ka mid ahaa baryadiisaa ilaahay noo soo siduu wax u baryey baa ilaahay nooga sheekeeyey. dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya oo muxuu igu ducaystay muxuu yidhi: qaala rabbi inii wahana alcadmu minii ilaahu lafahaygii waa jilceen washtacala ara'su shayban timtaydii waa wada caddaatay wa inii khiftu lmawaaliya min war. yani ilaahay uma baahna ilahay waa ogyahay inuu gaboobay oo da' noqday oo lafihiisii jilceen. haddana ilaahay buu u sheeganaya wuxuu ilah intaasoo dhan oo haysata waxaa iiga daran weliba islaantaydiina waa caqiima wax ma dhasho. intaasoo dhiboo isu tegey baan haddana ku weydiisanayaa wiil isay. waa tii loogu bishaareeyey. ilaahay wuxuuna barayaa sida aanu isugu bembahino oona u barino oonu ugu ashtakoonno u sheegan. marka kulligan horta saasaanu isfaraynaa. xilkaa iyo madaxtinimada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aada badisaan. ilaahay idinku garab galo. innagana waa idiin ducaynaynaa insha allah. mid yar oo waxaan waddanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aad iyo aad ilaahay uga mahadinaynaa nabadgelyo. waxaan oran karaa aniguna mujaamalo iga ahayn
oon cidna ugu dhowaanaynin oo cid garaadda kugu siinaysay cidna aysan jirin meel ay ka jirtay adduunka inay yar tahay nabadgelyada halkan taala muddo waxaan u malayn 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer Qatar isa soo raacnay oo niman culimo waaweyn oo dakaatiri ay ku jiraan airportka lanaga soo dhaweeyay Sheekh Ismaaciil iyo aanu ku soconay iyo jamaacadii dacwada si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyay gaari fiican baa lana saaray markii aan xoogay soo soconay oo arkeen wadooyin iyo maxay ahayd taraafika iyo askar wadadii kala hagaajinaysay iyo markii ay arkeen dhismihii iyo ayay af Carabi ku sheekaysanayaan ninkan wadaana af Carabi uu yaqaana mana ogeyn oo af Carabi garanayo waxa subhanallah هذه بلاد فيها حكومة كجرت وحانو مقلي بين meeshaan si waxba ka jirin kii Ismaaciil baa loo rajiray gaariga nagu wadayo markuu xantoodii maqlay buu wuxuu yiri Sheekh Cabdirashiid waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa sii mariyo ma sii marin karaa haa mari baan suuqu nagu leexiyay saa waxay u tageen lacagtii oo kurjada oo iska taal oo waliba goor duhur ay ahayd oo dadku kala rawaxeen wiil yar intuu la joogo waliba intuu lagu hiisii saartay iska jiifo hurdaba waa maxay waxaan waa lacag baa leeyahay inta doontaad heli karta hadana markaas uu leeyahay suuqii dahabka oo ay foodle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen waya madaxay qabsadeen wallahi bay dhaheen amniga meeshan yaal inuu soo wadankeena oo qadar baanu ka nimid dawladda ka taagantay waxa ilaahay baa laga helaa ilaahay baa keenay amniga ilaahay baa keenay xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemana طغيان iyo xogay talaxtag baa ku yimaada kala in al-insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna horta in ilaahay aan ku shukrino in ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu muhiimsan waa amni istiqraar kaasa ilaahay nasiiyay wadankeena aan ku aragnay alxamdulillah aad iyo aad inaan ilaahay ugu mahadino ma hadda ugu weyn in ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadinaynana ay noqoto inaanu ku shukrino wa shukruhu ta'atihi in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigan subhanahu wa ta'ala aanu ku caasino alxamdulillah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay wasiiradiina soo booqanayay in dadaal xoog leh lagu jiro oo aad iyo aad u weyn sidii looga hortagi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kasta ku faafay sidii looga hortagi lahaa oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyay wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoog leh lagu jiro mukhadaraadka oo la og yahay dhibaatada maanta ay tahay marka warku yuusan ila si talax tagin waxaan socodkeena uu ahaa inaanu idin mahad celino soo dhaweynta aad iyo aad u wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadin xukuumatan wa shacban loo kala hadin inaanu idinku mahadino inaanu idin sheegnayna idin ducayni ilaahay idin barinay insha Allah ta'ala ilaahina subhanahu wa ta'ala hormar iyo barwaaqo iyo bashbash fi dunya aakhirana ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa uu nageeyo taasaan ku soo gabagabeynaya wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh